السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن صاحب يال وقال كان وحن كسو قادم دونا آسكا دير ساريدا رياضادا maxaa aas u ah in qofku uu diiradda saaro riyadiisa sidii ugu rumoobi lahayd waayo qof walba wuxuu jecel yahay in maanta uu ka guul gaaro waxa maankiisa maskaxdiisa ka guuxaya qof walba meel buu jecel inuu gaaro nin baa jecel inuu noqdo wadaad caan nin baa jecel inuu noqdo ganacsade aad iyo aad u caan nin baa jecel inuu noqdo taliye nin baa jecel inuu noqdo madaxweyne nin walba waxbuu jecel yahay dunidan isku fikir ma aan dadku nin walba waxbuu jecel yahay sadarteed qofku wuxuu yahay qof hamigiisu oo meel fog gaarsiisan yahay sadarteed qof walba wuxuu jecel yahay inuu noqdo xitaa qofka aan fikirin oo aan ku mashquulsanayn sidoo isku hormari lahaa meel inuu gaaro ayuu jecel yahay sadarteed waxaan la wadaagi doonaa 7 qodob kuwa oo muhiim u ah aas-aaska diiradda saaridda riyadaada macnaheedu inaad noqotid qof riyadiisa ka dhabeeyo oo diiradda saara maxaa aas-aas u ah horta aas-aas ma laha waxay leedahay aas-aas laakiin waxaan ka soo qaadan doonaa 7 qodob nambarka 1 sii wadida ka fikiridda rumaynta riyadaada inaad ka fikirtid mar walba oo aad noqotid qof mar walba ka fikiraya sidoo riyadiisa u rumayn lahaa talow sidee inta ka bilowdaa maxaa muhiima sidee u rumaysaa riyadaada ama meesha ay hiigsanaysid ama qorshahaaga sidoo kugu rumoobi lahaa mar walba inaad ka fikirtid waayo qof walba wuxuu jecel yahay inuu riyadiisa rumeeyo ama qorshaha uu markaas wado ku guuleysto nin walbaahi qorshaha uu bilaabo maalin walba waxbuu ku daraa haddii uu ka caajisin ama ka harin ama uu ka taginba lambarka 2 wuxuu yahay la socoshada jadwalkaaga maalinlaha ee caadiga ah inaad jadwalkaaga maalinlaha ah la socotid waxa kuu qabsoomay waxa ka dhiman waxyaabaha aadan weli ku guuleysan waxyaabaha u baahan inaad ku guuleystid waxyaabaha ka maqan jadwalkaaga maalinlaha maxaa ku guuleystid maxaa ku faashilantay sida darteed qofku waa muhiim inuu maalinlihiisa ka fakaro oo noqdo qof wixii uu qabsoomay iyo wixii aan u qabsoomin oo kala garto number 3 marka hore qorshe waxa muhiimka ku ah inaad qorsheyso waxa muhiimka ku ah waa muhiim waayo qof walba oo doonay inuu guuleysto wuxuu qorsheeyaa siduu ku guuleysan lahaa tusaale ahaan hadda muuqaalkan aan diyaarinayo first one waxaan sameeyay inaan baaro waxyaabaha muhiimka ah inaan soo raadsiyo inaan microphone iyo soo qaato computerkii kadibna aan duubay kadibna aan muuqaal dur saarayo waxaas dhan waxay yihiin inaan marka hore qorsheeyo inaan marka hore isku dayo sidii aan barnaamijkan ku hirgelin lahaa sadartii qof walba wuxuu doonayaa inuu guuleysto marka waxa muhiim ah inaad noqotid qof marka hore shayga qorsheysta waxyaabaha muhiimka ku ah waa inaad qorsheeyda si kuu hirgelin lahayn lambar 4 baro isticmaalka ereyga maya si caqliyeysan ayaa loo isticmaalaa wax walba negative lagama noqdo mar walba wax walba maya lama yiraahdo laakiin si caqliyeysan ayaa loo isticmaalaa ereyga maya wuxuu ka saacidayaa waxaadan raali ka ahayn in lagu dirqiyo tusaale ahaan qof baa doonaya inuu kugu shaqeysto adiguna shaqadan kama aadahin sadarteed waxa wanaagsan adeer maya ma shaqeyn karo aniga shaqadan kama helin shaqadan u baahan waa noocaas hadaad isiin karto halaysiyo hadii kale Soomaa maya ma qabanayo shaqadan sida tiraadid xorriyadaada iyo dadnimadaada ayaa sheegaysa ereyga maya ma muujinayo doqonnimo iyo inaad tahay qof naaqusa laakiin wuxuu muujinayaa karti iyo dadnimo sadarteed waxa mar walba muhiim ah inaad wixii aadan ku qancin ama ku qalmin inaad maya tiraadid number 5 xusuusnow sababta aad u bilowday barnaamijka aad hadda ku guda jirtid oo doonaysid inaad guul ka gaartid waxbaad bilowday waxaad doonaysaa inaad guul ka soo hoydid tusaale ganacsiga bilowday ganacsiga waxaad doonaysaa inuu noqdo mid hirgala sidoo ku noqon kara marka waa inaad fahantaa sababta aad u bilowdo markii hore meesha aad hiigsanayso qorshahaaga waxyaabahaas dhan waa inaad markii hore soo diyaarsataa waa inaad ganacsigaaga xoog saartaa sidoo u noqon lahaa mid guuleysta dadka qaar markay meel dhex marayaan fahminba sababta ay markii hore u bilaabeen hadda haminaysid inaad madaxweyne noqotid waa shaqo u baahan dadaal laakiin ogow intaad ku jirtid campaign-ka ama isku diyaarinta haddii aadan fahmin sababta markii hore ku soo gashay ama sababtaad u bilowday barnaamijkan oo aad u daneynaysid inaad noqotid madaxweyne ama ra'iisul wasaare ama xildhibaan ama wasiir ama ganacsade caan ah waxaad noqon doontaa qofan waxa uu bilaabayba fahansaneen meesha u socdaan iyo meesha ka socdaan number 6
yeelo la taliye midka oo kugula taliya shaqada marka aad haydid xoogaa cilmina ku dheer oo ah qof waxaan kaaga horeeyay qofka shayga markuu aqoon u leeyahay ama waxaan kaaga horeeyo wax badan ayuu yaqaanaa laga yaabo inuu ku soo gubtay laga yaabo inuu ku soo fashilmo waxyaabo badan saa darteed mar walba la taliyuhu waa muhiim dhanka waxa markaas uu kaaga fiican yahay la taliyaha ugu wanaagsan waa midka kugula taliya alla ka cabsiga cibaadada Allah inaadan noqon qof dadka ku xadgudba haddana shaqadaada waa u muhiim la taliye midkaasi oo kaaga qabiirsan waxyaabahan horeyna uga soo shaqeeyay saa darteed mar walba dadka waxa kaaga horeeyay ka agdhowow oo la tasho waxaa macquul ah inay fikir kugu soo kordhiyaan waxaa macquul ah inay mar walba kugula taliyaan sida ku guuleysan lahayd number 7 barashada xirfad midda oo ka saacideysa in waxa aad doonayso ku guuleysid haddii aad tahay qof hadalyahana waxaad haysataa xirfad haddii aad tahay qof xamaaliya waxaad haysataa xirfad haddii aad tahay qof makaaniga waxaad haysataa xirfad haddii aad tahay qof macallina waxaad haysataa xirfad haddii aad tahay qof dad u turjuma luqadaha waxaad haysataa xirfad haddii aad tahay qof surgeon oo waxyaabaha baarana waxaad haysataa xirfad xirfadu waa waxaad ku shaqaysan lahayd xirfadu waxay ka saacideysaa in noloshaada aad bartid oo dad u baahan xirfadu waxay ka saacideysaa inaad noqotid qof mar walba ibni aadanka gacanta u horsan sadarteed waa inaad barataa xirfadii aad riyadaada ku rumayn lahayd riyadaada inaad rumaydo ayaa rabtaa waxaadna u rabtaa inaad guul weyn gaartid qorshaha noloshana aad guul weyn ka soo haysid sadarteed waxaa muhiima mar walba inaad xirfad baratid muuqaalka gabagabadiisa ayaan soo gaarnay waxaan jeclahay inaan la wadaago dhowr xigmadood midda koowaad waxay leedahay haddii aad rabtid wax aanad weligaa helin ama aadan haysanba inaad hesho waa inaad samayso wax aanad weligaa samayn shay ayaadan haysan waana rabtaa saa darteed si aad u heshid shaygaas waa inaad samaysid waxaadan weligaa samayn macnaha shaqo aadan weligaa gelin waa inaad gashaa si shaygaas aad u heshid mid kale ayaa waxay leedahay fogaanta u dhaxaysa riyooyinka iyo xaqiiqada waxaa loo yaqaanaa ficil haddii qofku yidhaa Allah aniga riyo weynaan leeyahay Allah waxaan jeclahay inaan saas yeelo waxa uu sheegay waxa u baahan yihiin samayn ficil u baahan yihiin sadarteed fogaanta u dhaxaysa riyooyinka iyo xaqiiqada waxaa kaliya loo yaqaanaa ficil qofku markuu wax qabto noloshiisa qaybo kamid ah ayuu horu socodka ugu guuleystay mid kale waxay leedahay jooji sugitaanka nolosha farxadeeda waxaa lagu gaaraa marka aad joojiso sugitaanka oo aad ka faa'iideysto waqtigaaga hadda ku jirto muhiim waxa ah waqtigaaga markaas aad taaganta inaad ka faa'iideysid si aad u guuleysatid waa inaad waqtigaaga ka faa'iideystaa waa inaad joojisaa sugitaanka waqti hebel ha la gaaro ama saas waxaas isku bedelaan ama waxyaabahaas ama qofkaas waa inaan helaa waxyaabahaas dhan waa inaad joojisaa middan kale waxay leedahay isweydii in waxa aad maanta qabanayso ay kugu soo dhaweynayaan halka aad biri hiigsanayso ama aad rabto inaad gaarto qof walba wuxuu maanta tacabado ayuu biri mirahooda gurtaa haddii aad tahay qof ahludiinnimadaas mirahooda guran doontaa haddii aad tahay madaxweyne maamuuska iyo sharaftaada waa heli doontaa mar walba qof walba wuxuu uu maanta sameeyo ayaa ursi dhaweyn doona halka uu biri hiigsanayo sadarteed mar walba waxaad fiirisaa waxaad qabanaysid iyo waxaad jeceshay inaad noqotid mid kale waxay leedahay ha sugin noloshu waxa ay u socotaa si ka dhaqso badan sidaad u malaynayso macnaha noloshu ma ahan mid istaagayso sidaad u moodan uma socoto si ka dhaqso badan ay u socotaa wax walba meeshaad ku ogeed ma ahan doonaan meel kale ay istaagi doonaan noloshuna mar walba way degdeg badan tahay oo ma ahan mid iska taagan sadarteed waqtigaaga ka faa'iideyso mid kale ayaa waxay leedahay haddaadan weli helin sii eg macnaha middan waa rajo waxaad doonaysay shay ayaad doonaysay inaad ku guulaysato tartan ayaa u gashay shaygii kuma aada guulaysan wax badan ayaad ka weysay welina ma aadan helin waxaa wanaagsan shaygaas inaadan ka tegin oo aad eegtid mar walbana aad raadisid sidaad ugu guulaysanayd guulaystuhu waa midka ku dadaala waxa uu jecel yahay siduu uga guulgaari lahaa mar walba waxaad danaysaa waxa aad doonaysid inaad ku guulaysid saa ku heli lahayd waxaan rajaynayaa muuqaalka inaad wax badan ka faa'iiday ka mid noqo saaxiibada halka ku xiran qaybta hoose comment ugu reeb fikirkaaga hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu